qashinle ku geeriyooday xabada uga timid qashin uu qaadayay dhaxdiisa. intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato fadlan nagu soo biir maasan. 40 jir ka mid ah shaqaalaha nadaafadda ee dalka Mexico ayaa geeriyooday xilli uu qashin saarayay gaariga qashinka lagu qaado. xabad ayaa uga timid qashinkii uu qaadayay, waxayna xabadaasi uga timid qori ku dhex jiray qashinka oo aan la ogeyn. qoriga ayaa ku dhex jiray bacaha waaweyn ee qashinka lagu guro. ninkan 40 jirka ah ayaa damacsanaa in uu nadiifiyo magaaladiisa, qashinkana ka qaado dibadda magaaladana geeyo si bilicda wadankiisa gaar ahaan magaaladii uu ku noolaa uga shaqeeyo. laakiin waxa ay noqotay midii noloshiisa soo gabagabeysay bacdi ugu dambeysay uu saarayay gaariga qashinka. dhacadan ma ahan mid ugub ku ah dalka Mexico. kol hore warbaahinta dalka Mexico waxa ay tabisay sheeko la mid ah tan aanu hadda ka sheekeynayno, taasoo ah nin ka shaqeeya nadaafadda magaalada in uu sidan oo kale ku geeriyooday xabad uga timid qashin uu qaadayay dhaxdiisa. suurayso daawade, meel aad ka shaqeynayso nadaafadda ama bilicda si aad u soo celiso oo kaaga imaada ajashaada ama dhaawac halis ah uu ka soo gaaro. balse dalka Mexico ma ahan mid ku cusub sheekooyinka noocan oo kale ah. Mexico waxa ay ka mid tahay meelaha dambiyada raydka loo geysto iyo burcadnimada ay wax caadi ah ka noqotay.